qaar ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho kulan ay isugu yimaadeen ayay ka codsadeen xildhibaanada baarlamaanka in la ansixiyo wasiiradii dhawaan uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Khayre. Faadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo dirtay. kulankan oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay salaadiin iyo cuqaal isugu jira kuwii xildhibaanada baarlamaanka soo xulay iyo mas'uuliyiin kale. waxaana baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kaga codsadeen inay codka kalsoonida ah siiyaan isla markaana ansixiyaan golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu dhawaan soo magacaabay. waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo goobta ka hadlay. مشينا برلمان الشرفت له قدامك يستر محمد الشيخ عثمان جواري هي حبناها برلمان والله لي الواحد الله هاي جواري نكا لينا فرماجة نكا دورتين والله يكون دعي والله يكون سود ويشرف يدين نقطة رئيس الوزراء أو صوم عمل نكا أربشين والله يكون دعي والله يكون أمانة شرفت كويرتين صورة دل نغمة مرك المية دلنا ديدان المية دلنا ديدان صورة دل نغمة waxaan idinka codsanaynaa inaad sharafta saddexaad qaataano aada wasiirada sii daysaan oo ansixisaan. haddii dawladda cidi ka cabanayso anaa ka caban lahaa markee wuxuu yidhi markuu qalayay qorshaynahayey markuu qaybshay qarankii weynaa aniga waa qadiyey Khayre qoyskaan ahay waa la quursaday qajaafil hoosaana lagu qoray khilaafna kama imanin reerkii dawladda qumaantii waa ansixiyo qof diidaanayuu jiri أمة الصومالية أنتي دوبة أنتي سلطان كل ولا حادثية وحلا برينا هنا وبرلمان كان هو حيوان ده أنا جايني إيه مرك وحلا كنا هنا الشوذان برلمان كيو حيوان ده وحلا قعد سنة إلهي إذن كيس إن أي أنصحيان دولة أو صديق رئيس الوزراء isbedel ka muujiseen oo ummaddu inta badanu aan la filayn waxa la lahaa baarlamaanka waa la iibsadaayo lacag bay joogaano waa la gadanaya markaasay waxay ay meel xun ugu dhigi doonaan laakiin inaadnan iibsamayn wadaniyad iyo Soomaalinimo iyo mataqaanaa ilaah ka cabsi iyo ummadiina inaad maaragto u naxariisataan intaba inaad samaysan waa aragnaa. ugu dambeyntiina nabadoon maxamed xasan xaad iyo nabadoon axmed diiriye cali gadiid oo halkaasi hadallo qiirale ka soo jeediya ayaa baarlamaanka oo kula dardaarmay inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Alaheena baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaan ku gaarsiinaynaa cod dheer inay ansixiyaan xukuumadda ra'iisul wasaaruhu soo dhisay ku magac yeeshaan ay mahadiso maanta Soomaaliya meel ay joogtaba waxayna markaas u ekaaneen inaan helnay baarlamaan ka duwan kii hore inaan helnay dawladnimo iyo hidile ka duwan kii hore oo looga bixi karo mugdiga iyo hagardaamadi iyo dhibaatada faraha badneed oo muddo dheer aan ku soo jirtay. walaalayaal hadaatiin baarlamaankii waad maqlayseen hogaamiyaasha dhaqanka oo aan aaminsanahay inay ku idin keenay yihiin cabashadooda iyo codsigooda anigu ma rabo in wax kale lagu daro goodiska xogaa waxaad moodaa inuu cala keeni karo hadda majaraha midida ayagaa daabka ka haya baarlamaanku inay waanta wax ansixiyaan ayagaa awoodda u leh waxaan rabnaa inaan dib loo laaban. waxaan soo jeedinaynaa nimayow baarlamaanka ahi inaad dan ilaahay ku samartaan inaad ku samartaan dalkana aad badbaadisaan dadka idinla hadlahayana aad tixgelisaan baarlamaanka ansixiya xukuumadda ansixiya baarlamaanka oo ilaahay ka baqa codsiinada laydin codsanayo tixgeliya dadkaas nin oday ahoo niman badan odayaaloo wada socda oo geel laga dhacay ayaa u ergooday nimankii geela ka dhacay. nin ka mid wuxuu yidhi nin rali cadaabkiiba waa lagaga ceesaahe rag caddaaday baa nugu jira geela noo celiyo war baarlamaanku waxaan idin leenahay meeshaan waxaa jooga rag caddaaday ayaa maanta fadhiya anaan dhahaygu hayaan adinku waa ka maqan tihiin war rag caddaaday baa halkaan fadhiya oo ilaahay karaameeyey
ووحي إلهي كبر يا إلهي ركاق بروك يرو عنو ملايين حيو وحي إنكارنا إلهي وأقبله بالغ يابا والذين دعينا يا حتى إنكار الذين قدم مايو وحن الله نهي ولا ليالو ما ندويو إلهي كبغا إلهي كبغا قرمان هشينا دقال ما نقا بحلوين ورواتي على هذا المدعوين دورتين واتي أدو سعبينيسين واتي ليابي سيدا آدمان تدوين مدحوينها وسو دويدين ودو دورتين ودو وحجيسين هدي ألا كورو يقدويها مقرنيسا رئيس الرسالة مركو دورتين وروحي مشحرة دي على قد إنك دعايا والمغلهي ودادك وحو يري من الله إلى الصومالي إلهي وحو ما أنت يقول لي ببرلمانك رجع وغدقي ورجع وغدير سنة هي فاطمة شق عبد الله هذا كلسن تي في مقدشو.